nin ayaa naftiisa hoos u geliyay gaari si uu u badbaadiyo gabadha uu korsaday isaga oo naftiisa ku huray si aysan iyadu u dhaawacmin. markii ay hooyada talaabadu su'aalo weydiisay Haiju waxay kartay in aabaheed uu ku dhacay gaari isagoo iyada badbaadinaya. hooyada talaabadu waxay ku eedeysay Haiju geeridiisa isla markiiba gurigana way ka cayrisay. Haiju waxay jilbaha dhulka u dhigatay iyadoo baryaysa in la sii joogo balse haweeneydu ma jilicsan. iyadoo aan meel kale u socon Haiju waxay tagtay xeebta halka dambaska aabaheed lagu daadshay. way oyday wayna ka cudur daartay. maalintii xigtay Tange ayaa helay wuxuuna ku qaaday guriga. roob ayay ku soo jirtay habeenkii oo dhan qandho sarena way qabtay. si kastaba ha ahaatee hooyada talaabadu way diiday in la dejiyo. Haiju way cudur daaratay waxayna ka baryootantay in aan la erin. iyadoo hadalka ku jirta ayay suuxday. hooyada talaabadu iyadoo dareentay wax yar oo qoomamo ah ugu dambeyn waxay ogolaatay in Tange gudaha u qaado si ay u nasto. Gengsan oo isaguna yimid si uu u hubsado xaaladeeda markuu arkay Tange oo taabanaya fooda Haiju masayr ayaa ku dhacay. wuxuu riixay Tange wuxuuna ku adkaystay inuu isagu daryeelo. habeenkaas Haiju waxay ku riyootay aabaheed. wuxuu ku dhiirigeliyay inay bogsato wuxuuna u sheegay in hooyada talaabadu dhab ahaantii danaynayso. xitaa waxay u karinaysay cunto jilicsan boor. markii Haiju toostay waxay aragtay baaquli boor ah oo sariirteeda ag yaala. hal ilbiriqsi ayay ka dareentay diirimaad haweeneydii had iyo jeer adkay. laakiin qol kale hooyada talaabadu si lama filaan ah ayay fool u gashay. waxay dirtay wiilkeeda si uu u soo waco umuliso. Haiju way kacday si ay u caawiso. biyo ayay karkarisay wax yar kadibna guriga waxaa buuxiyey oo hinta ilmo cusub. iyadoo qabata walaasheed yar ee cusub Haiju waxay dejisay hooyada talaabada. inkasta oo ay waayeen aabihii haddana hadda ilmo cusub ayay heleen. waxay ballan qaaday inay ka caawin doonto korinta walaasheed waxayna ka codsatay hooyadeed inaysan mar dambe murugoon. ereyadaas ayaa ugu dambeyn jebiyey qalbigii adkaa ee hooyada talaabada iyadoo noloshu u muuqatay mid degaysa. laakiin wax lama filaan ah ayaa dhacay. tuuladoodii waxaa si qasab ah loo burburinayay. ninka ka dambeeyeyna wuxuu ahaa Jang Do-hyun. si uu ula wareego warshadii doonyaha ee awowga Gengsan wuxuu ku eedeeyey odaygii canshuur dhaaf been ah. shirkadiina wuu xiray dhulkana wuu qaatay kaas oo ahaa halka Haiju ku noolay. wuxuu qorsheeyey inuu ka dhiso warshad doonyo oo cusub. dadka kale ee tuulada magdhow way heleen balse maadaama qoyska Haiju ay ahaayeen soo galooti waxba lama siin. hooyada talaabada iyo afarteeda carruur ah waxay ku dhamaadeen hoylaan iyagoo hoos fadhiya buundo. walaasha yar ee hooyada maalqabeenka ah ayaa si lama filaan ah roob uga dhuumatay halkaas. markii ay ogaatay waxa sodogeed sameeyey isla markiiba waxay qoyska geysay aqalka weyn. butleerkii aad buu ula yaabay markuu arkay Haiju gabadhii uu nolosheeda burburiyey oo halkaas taagan. walaasha waxay ka codsatay walaasheed weyn inay qoyska qaabisho balse hooyada maalqabeenka ah way ka labalabaysay. hooyada talaabada ayaa jilbaha u dhacday iyadoo si xad dhaaf ah u muujinaysa dhibkooda. halkaas ayay Tange soo dhex galay wuxuuna soo jeediyey in ay degi karaan qolkiisa. inkastoo uu yaraa wuxuu sheegay in isaga iyo aabihii ay ku seexan karaan qolka fadhiga. hooyada talaabada ayaa si degdeg ah u qabsatay fursadaas waxayna si toos ah ugu dhaqaaqday guriga Tange iyada oo aan sugayn ogolaanshaha butleerka. habeenkaas Haiju waxay uga mahad celisay Tange naxariistiisa. laakiin Tange oo muddo dheer dareen u qabay wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay keliya inay u dhowdahay. iyagoo wada laadlaadinaya dhar si kama ah ayuu gacmihiisa ugu jiiday. ilmun ayaa arkay arrintaas wuxuuna ku jeesjeesay Haiju isagoo ku tilmaamay qoyskeeda tuug sabool ah oo si eeb ah ugu nool gurigiisa. Haiju wax badan way u dulqaadan kartay laakiin ma aqbali karin aflagaado loo geysto qoyskeeda. waxay qabsatay xaaqin weyna iska caabisay ilaa ilmun uu noqday mid aan waxba qaban karin. hooyada maalqabeenka ah ayaa aragtay wax walba waxayna Haiju ku canaanatay inay ogaatay meesheeda. laakiin sidoo kale waxay ogaatay in Haiju weli xidhan tahay dharkeedii hore. markii ay weydiisay sababta aysan u xiran dharkii ay siisay Haiju waxay sharaxday inay iibisay si ay cunto ugu iibsato hooyadeed. inta aysan hadalka dhammayn haweeneydii way dirtay. maalintii xigtay haddana waxay Haiju siisay dhar ka sii qurux badan. inha ayaa ammaantay sida ay Haiju u qurux badan tahay. laakiin Haiju oo aan caado u lahayn waxyaabaha wanaagsan way istibsatay waxayna isku dayday inay iska bixiso. isla markaas Jang Do-hyun ayaa soo galay isaguna wuu ammaantay. kadibna wejigiisa wuu isbedelay. wuxuu arkay nabarkii gubashada ee dhabarkeeda. nabarkaas oo la mid ah kii ilmaha uu sanado ka hor ka tegay. sanado ka hor ninkan wuxuu dilay ilmo yar oo gabadh ah. hadda wuu naxay markii uu arkay gabadh dhalinyaro ah oo qoorteeda gadaal kaga taal nabar la mid ah kii ilmahaas lahaa. wuxuu ka shakiyey in Haiju ay tahay isla ilmahaas. wuxuu helay hooyada korsatay wuxuuna weydiiyey in Haiju ay tahay gabadheeda dhabta ah. adeegihii butlerka wuu argagaxay. laakiin hooyada korsatay si khaldan bay u fahamtay. waxay u qaadatay inuu ku caayayo madhalaysnimo. waxay ku adkaysatay in Haiju ay tahay dhiigeeda iyo lafteeda. Jang Do-hyun wuu ka cudur daartay dusha sare balse si qarsoodi ah ayuu u amray adeegaha in uu ka takhaluso qoyska Haiju si kasta oo suuragal ah. adeeguhu wuxuu xusuustay in aabaha Haiju markii hore magaalada u yimid si uu uga cararo deymo. wuxuu sameeyey wicitaan. wax yar kadib nin amaah bixiye loon shark ah ayaa yimid. markuu arkay Haiju oo xiran dhar qurux badan wuxuu isku dayay inuu kufsado. adeeguhu wuxuu yimid waqtigii ugu dambeeyey wuxuuna ballan qaaday inuu bixiyo dhammaan deymaha qoyska. hal shuruud mooye waa in ay ka guuraan guriga hantida leh. iyadoo aanay haysan lacag ay ku diidaan hooyada korsatay way ogolaatay. maalintii xigtay qoyska ayaa bilaabay inay rarataan. inha way oyday iyadoo arkaysa saaxiibteed oo baxaysa. Haiju way eegaysay hareeraha balse ma aysan arkin qofka ay ugu doonaysay inay aragto. Tange wuxuu ka daawanayay meel fog qalbi jab aamusnaan ah. intii ay safarka ku jireen Haiju waxay ka codsatay darawalka inuu istaago. waxay u tagtay xeebta halka dambaska aabaheed lagu daadiyey si ay sagootin ugu dambaysa u samayso. dhinaca kale markii hooyadii taajirka ahayd ay kasoo noqotay dukaamaysi gabadh adeegto ah ayaa ka cabanaysay in qoyska Haiju ay ka tageen alaabo. waxaa ka mid ahaa funaanad jaalle ah tii ay gabadheedu xiratay maalintii ay ku qaraqantay badda. waxay si istaba joog ah u weydiisay gabadhii adeegta ahayd in alaabtan dhab ahaan ay Haiju leedahay. gabadhii way madaxa ruuxday. hooyadii isla markiiba waxay u yeertay adeegaha. waxay dalbatay runta. gabadheedu ma hirarka badda baa qaadeen. maxay funaanadeedu ugu jirtay alaabta Haiju? markay aragtay sida uu adeeguhu u gariirayo waxay garatay in gabadheedu weli noolaan karto. waxay weydiisay Haiju ma Yujin ba? markii runta ay ku dhawaatay inay soo baxdo Jang Do-hyun ayaa soo dhex galay isagoo iska dhigay mid naagtiisa dejinaya. wuxuu u diray adeegaha inuu xaqiijiyo arrin ka jirta tuulada Haiju laakiin dhab ahaantii wuxuu ahaa amar ah in Haiju la dabar gooyo. adeeguhu wuu fahmay. hase yeeshee hooyada taajirka ah waxay ku adkaysatay inay raacdo. isagoo wareersan adeeguhu wuxuu iska dhigay inuu dhar bedelanayo wuxuuna wacay ninkii amaah bixiyaha ahaa. si kasta oo ay noqotaba qoyska Haiju ma gaari karaan tuulada. markii hooyadii taajirka ahayd ay gaartay guriga Haiju cidna ma joogin. qoyska Haiju jidka ayaa laga qabtay. ninkii amaah bixiyaha ahaa wuxuu geeyey warshad cidla ah. qorshihiisu wuxuu ahaa inuu
inuu hayju iibiyo inta kalena dilo markuu ka tegay qoyska ayaa si waali ah u qoday dalool ay kaga baxsadaan walaasha yar ee hayju ayaa daloolka ka dhex baxday albaabkiina furtay laakiin iyagoo baxsanaya ayuu ninkii soo noqday way iskariyeen si ay u badbaadiso qoyskeeda hayju keligeed ayay ragga u jiiday hooyadii taajirka ahayd habeen dhan way sugaysay hayju ma aysan imaan markaas hayju waxaa lagu eriyey ilaa gees buureed oo badda ku yaal iyadoo hortiisa ay ka guuxayso badda ayay geesinimo isu keentay wayna boode